بسم الله الرحمن الرحيم مبتأد بقى مهندسنت هاي هرت قفكو إنه هالدور يهي سو اسمه أوجا والويرة هذا قفكاس وهالدور لكن قفكاس وحوليه هي هيكسي بوليه أنا ومركي أن سكري بيئات في عنبان سكري سكول بالجيي فرصة في عنبان صهلي waxaan ku soo bartay wax muxuu ahaayay canshuurtii shacabka Soomaaliyeed laga qaadi jiray waxaan ku soo bartay marka hamigaygu wuxuu ahaa in waxbarashada dhameysto in aan u gudo abaalkayga u gudo muxuu ahaa shacabka aan canshuurtooda wax ku soo bartay marka qofku asagu isma siin karo laakiin Ilaahay ayaa gacan qabta muxuu ahaayay fursadaha uu helana way gacan qabtaan marka runtii anigana hamigayga inaan noqdo hal door kaalintiisa ka soo baxa qorshahayga waa ku jirta Ilaahayna waa ila garab galay sidoo kalena muxuu ahaayay qof wax kugu dhiirigeliya baa jira qofku marka uu yar yahay waalidkiisa ku dhiirigeliya marka uu weynaado oo reer noqdo waxa nasiibkiisa sii kaabi kara waxa waa guriga uu galo waay runtii aniga qoyskayga ama odagayga kaleeto uu dhiirigeliya in aan macnaha hiigsigayga aan gaaro dumarka badanaaba cadaadis baa inta badan ay sheegtaan in aan muxuu ahaa odagooda u ogolayn inay maaragtay horumariyaan hamigooda horumariyaan laakiin qofka duu ku kaabo inaad dhoofi kartid inaad wax kororsan kartid in aad muxuu ahaayay hamigaaga gaari kartid runtii waa wax wanaagsan marka beedaydii iyo qoyskaygii iyo fursadihii waxbarasho aan helay intaas waxaan dhihi karaa dhiirigelin bay ii noqotay horta caqabadu waa farbadan yihiin qofka dhinac ka soo wajahdaa anigu gaar ahaan markii aan waxbarashada dhameystay waxbarasho fursad waxaan helay dibadda waxbarasho la iigu diro dibadda markaan waxbarashadii soo dhameystay oo dalka ku soo noqday waxay ahayd xilliyadii sansaanta dagaal Soomaaliya ka soo cusboonaatay gaar ahaan anigu aan si fiican u sii shaqo bilaabin oo shaqo mar labaad aan dib u hawlgelinin haddana maalintii dagaalka la qaxay waxay ahayd maalintii aan muxuu ahaa guursanayay bay ahayd aqalgalkayga ahayd habeenka dagaalka Soomaaliya dhacay marka taas runtii caqabad bay waxay ku ahayd yaani horumarkayga ku ahayd kadibna waxa weeyaan qaxi ayaan la soo kulmay markii aan qaxayna waxa weeyaan waxaan niyeystay in aan mar haddii aan dalkayga ka soo tagay deegaankayga aan ka soo tagay in aan waxbarasho iska sii korsado oo aan iska sii dagaalada ka sii tago haddana markii aan tagay waxaan la kulmay dadkii Soomaaliyeed kismaayaan tagay dadkii Soomaaliyeed oo muxuu ahaa dagaalada ka barakacay gaar ahaan dadkii xoololeyda beeraleyda ahaa oo aad ugu baaba'san laamiyada ku dhimanaya laamiyada gaajo uga baqtiyay waan xasuustaa maalintii ugu horeysay oo rabay inaan doonta raaco subax ayaa waxaan la kulmay qoys dhan oo muxuu ahaayay gaajo wada dhintay oo hal gabar ka hartay marka halkaas gabar oo ka hartay in aan hayo baan muxuu uga baaqday safarkii haddana aan dibadda aadi lahaa gabadhaas baan korsaday aan hayay haddana waxaan go'aan ku gaaray inaan dadkii kale oo dhibaataysnaa oo muxuu ahaayay laamiyada ku dhimanay oo kamid ahaa qoyskaas baabaayo kale kamid ahaa in aan muxuu ahaa gacan siiyo koox abuuro dad badan baan abuuray waxyaabo badan baan muxuu ahaay raadiyay noloshoodii baan raadiyay ilaa 4,000 oo qoys oo Soomaaliyeed ayaa Ilaahay baa badbaadiyay laakiin aan anigu dadaalkii aan sameeyay ku badbaaday oo xoolo dhaqato ah oo beeraley ah dadkii masaakiinta dadkii soo barakacay ilaa 7 bilood ba iyadoo cidna waxba isiin waxa weey waxaan u raadin jiray suuqa uga qaaraamin jirnay suuqa uga tuugsan jirnay masaajidada wax uga raadin jirnay muxuu ahaayay gacanteeda ugu shaqayn jirnay habeen iyo maalin u soo jeedi jirnay dhibaatooyin badan anaga naga raaceen dad badan oo volunteerskii shaqaalaha ila shaqaynay ku dhinteen dagaalada laftirkoodii lagu dilay gabadhii aan daraadeed u baaqday oo dalka u joogay laftirkeedii lagu kufsaday xarumihii aan dadka ku muxuu ahaay qoodin jirnay ku dhimatay yaani dhibaatooyinkaas oo dhan markay ila soo kulmeen haddana dib waxaan ugu soo noqday gobolada Waqooyi Bari oo aan weliga imaan iyaga laftirkood iigu horeysay markaas garow kaleeto iyadoo laftirkeeda magaalada iska yar tahay aan horumarku yar yahay ururka shaqeeyo kuwa dibadeed iyo kuwa kale aysan jirin markaas haddana niyadda ay soo inaan dib mar walba wax bilaabo ayaa niyaddu iigu soo aan bilaabay ka bacdina waxa weeyaan runtii maanta waxaan ku faraxsanahay dad badan oo dadkii waagaas aan wax baray ama iskuulada u furay ama aan muxuu ahaay horumarka kala shaqeeyay ayaa maanta muxuu jaamacadaha dhiga
oo ayagu maxaa la taliyayaal oo ayagu businessyo waaweyn loo ayagu horumar badan gaaray marka waxaan oran karaa yani dhinacna guul bay ka ahayd dhinacna caqabada iga la soo kulmay bay ahayd dhinacna waxaan kala wadaagaa caqabadaha dumarka haysta oo ah inaan dumarku waxba loo ogolayn oo markasta lagu horumariyo ragga lagu horumariyo marka ugu horeysa marka aad visionkaaga ugu horeysa ama hiigsigaaga ugu horeey uu ahaa muxuu ahaay in aad gaartid yool fiican oo gaar ahaan aniga yoolkaygu wuxuu ahaa inaan gacan siiyo qoysaska haweenka iyo caruurta aan siiyo haweenka iyo caruurta marka waxa weeye dadka ugu baahida badan bay ahaayeen marka markastana waxaad qalbiga ku haysaa inaad dumar tahay inaad gabar muslimada tahay oo gabadha mar walba waxyaabaha lagu muxuu ahaayey inay ilaaliso diinta islaamka waxyaabaha ay fartay waxyaabaha ay muxuu ahaayey ka reebaysan ay ka harto marka adoo intaas xasuusan inaad dumar tahay raba inaad wax qabatid qoys ah oo raba qoyskaaga inaad wax ka qabatid marka waxaad iska ilaalinaysaa number 1 inaad dambi ka gashid qoyskaaga caruurtaadii odagaagii muxuu ahaay inaad shaqo qabatidna waad rabtaa marka sida kaliya wax ugu qaban karto waxa weeye in aad culays badan saadho xoog badan inaad gelisid marka waxa weeyaan qoyskaygan ka warqabaa noloshoodan ka warqabaa muxuu ahaay baahida reerkan ka warqabaa isla markaasna shaqadeeda kale waan qabtaa sababtoo ah haddii aad meel aad horumarisid meelna aad baabi'isid waxa weeyaan guushaadu waxa ma tarinin marka guushaadu waxa waaye mar walba inaad balance garaysid muxuu ahaay gurigaaga مسؤولية كاسرن يا مسؤولية بلشة كاسر بلشة كلية دا حوق ساردد غيرك بعض لمس مرك لبضبة إن حوق ساردد مرك حوق وقتي يقول كل قيب سنة هاي وقتي وحنسية غيرك محيا لي هدي أنا غيرك حوق سارن وحواي قيس كله وحم وتركرتي قيس وقت بانسية بلشة أنا أشقي أنا وقت بانسية نفتي إذا أنا وقت بانسية محيا لو حياة ببضن وأنا عبادة إلهي كفري أما أديك لفتر كاو أترفتينا سيهر مرسيد سيد مركب القرآن للسماين يسيد نفط هذا لفتر كوقت بأباهنته دي نفط هذا بابيسيد وحاج وحيو إنه أبابا أيوة محمد تريان مركب مرة والبا تام كان وإنه كو قرشي هيكس في عليها هرت صرت قوة وحواي كالبناني waxyaabaha la yiraahdo inuu qofku transparent inaad maartan muujisid waxaad qabanaysaa in niyad ka tahay yani hadii aad wax u qabato istus ama yani dadku ha ku arko ama aad muxuu ahaay aad wax ku heshid waxa guul kuma gaaraysid waxa guul lagu gaaro waxa waaye number 1 inaad noloshaada ku xirinin aad wax ku heshid inaad ku xirinin number 2 na waxa waaye inay niyad ka tahay marka niyad wanaagna aad la timaadid aadna maaragtay daacadnimo iyo inaadan waxba ka raadinaynin marka anu waxa weeyaan waxa laga yaabaa shaqo inta bilaabo ina waagu igu bariyaa dhici karta waxa laga yaabaa inaan nagas dheer shaqeeyo waxa laga yaabaa qof dhalinyaro ama qof aan la shaqeynay inuu xiga codsado inaad waxaas ii qabo waligeed time kuma xirinin waligeed kuma xirinin yani waxaas kuma sameyn karo haday habeen tahay oo 5 saac habeen qofku inta ila soo hadlo ila waxaas baan ka rabaa inaa ii qabatid waxba ila ma ahan ila waagu ku bari inaa qofkaas u shaqeeyo marka waxa weeye number 1 niyad wanaag waxa waaye very important waaye midda kalena waxa weeye inaysan ka ahayn dadku ha ku arko iyo cunaha muxuu ahaa leeyahay hebel waa shaqo badan yahay kan dadka aad wax u qabanaysid inaad kalsooni u muujisid sababtoo ah dadka hadii aad u muujisid ka weynaansho inaad ka sareysid ama ka weyn tahay ama madaxaad u muujisid waxa bulshadu ku aqbali mayso bulshadu waxa say tahay baa loola ekaada hadaad mii joogto miyiga la isku ekaysiya hadaad magaalo joogto meel walba nooca ay tahay la isku ekaysiya kama hadlayo labisiya kama hadlayo kaliya waxaan ka hadlayaa dhaqan ahaan iyo bay'adaas aad joogto sida ay tahay hadaad dhalinyaro la shaqeynaysid hadaad waayeel la shaqeynaysid hadaad dumar la shaqeynaysid dumar baan inta badan la shaqeyna dumarku inaad waqtigooda qadarisaa waxa weeye waa hooyo caruur bay haysaa suuq bay ka soo adeegaysaa macnaha waqtiyada aad la balamaysid ama wax la qabanaysid waa inay noqdaan waqtiyada isbeerkeeda ah oo timekeeda ay tahay inaad wax qaban kartid meesha aad kala qabanaysid waxay tahay meel u dhow oo accessibility-geeda maaragtay ay gaari karto oo kaleeto midda kale waxa weeye inaad ogaatid baahida dadka aad la shaqeynaysid macnaha kaliya aadan dusha kaliya fiirinin haddii aad shaqaalahaaga ama dadka aad la maamulaysid ama dadka wax la qabanaysid aad u muujisid niyad wanaag oo aad la shaqaysid oo tan muxuu ahaa jikada ku jirta iyo kan muxuu ahaa wax qabanaya aad la soo waxayso shaah la soo waxaysido kan la waxaysido wax shaqada la helo aad la socodsiisid oo yacni wax walba ay noqdaan bannaan kaama shakiyayaan
kaama muxuu ahaayey inaad wax gadaashaada ku jiraan kaama filayaan wax walba ogyihiin inay bannaan yihiin marka mar walba secretka ugu fiican waxa waaye dadka aad la nooshahay in aad maaragtay si daacadnimo ah oo kalbanaan iyo niyad wanaag ah kula dhaqantid dardaarankayga aan rabo caawa inaan idin sheego waxa waaye kow horta waxaa la rabaa qofka marka uu inuu horta leeyahay hiigsi leeyahay adduunka kaliya inuu isku xidho horta adduunkiisa iyo aakhiradiisa kulli inuu horta xasuusnaado marka labaad waxa waaye dadka aad la shaqaynaysid inaad niyad wanaag kula shaqaysid midda kale waxaa loo baahan yahay in aad timekaaga iyo waqtigaaga iyaga laftarka ku qorshaysan yihiin waxaa loo baahan yahay inaadan isdhihinin waxaan dib u dhigo wax walba marka waxa waa adoo bari ay ka dhamaanayso oo kaleeto ayaa wax kasta waxa lagu dadaalaa inaad hawshaada aad dhameysatid marka waxaan kula dardaarmay waxa way dhalinyarada kaleeto dhalinyarada mustaqbalka waaye waa dadkii wadanku u baahnaa waa dadkii waxyaabihii anagu aan soo qabanay iyo waxyaabihii kuwii naga horeeyay qabteen dadka ay maanta sugayaan weeye marka waxa loo baahan yahay kow inaysan lacag fiirin lacag haddii aad fiirisid oo ama lacag raadisid weliga waxa ku suurtagolmayaan waxaa la rabaa way aragnimo raadi dadka inta waxaad ka kororsan kar waa wax kororsi ka raadi dadka inta wax la qaban kartid la qabo dulqaad yeelo dulqaadku waxa ugu muhiimsan dad dulqaad leh waxma qaban kartid samir baa laga rabaa iyadoo maanta oo dhan wax lagu leeyahay hebel waxa soo qaatay hebel waxa soo sameeyay hebel dadkaas u dhibaateeyay ayaa waxa loo rabaa haddana inaad samirtid baa loo baahan marka samir baa laga rabaa dulqaad baa laga rabaa shaqo badan baa laga rabaa niyad wanaag baa laga rabaa waxa laga rabaa in aad cid walba la shaqayn kartid aad cidna nabcaysan qofka ku jecel iyo ka ku nacab si siman baa la shaqeeya kan ku nacab baa waliba lala sii shaqeeya oo soo dhaweeya si waxa loo baahan waxa la yiraahdo inclusivity baa la sameeyaa macnaha qolka hadii dadku banaanka taagan yihiin waxay u maleynayaan qolka in wax lagu haysto in wax asaga laga qarsanayo marka albaabkaagu inuu furnaado mar walba inclusivity waxa loo baahan yahay albaabkaagu ha furnaado hal soo wada galo dadka dhan soo wada xiragali marka waxa waa cidna ma kala shaqeeyso dadka mar walba la hadal oo waxyaabaha waxaad ogaataa xuraanka guud dhageyso maxaa dadku tabanayaan dadka marka ogaato waxay tabanayaan hogaami ahaan waxa laga baahay isla markaa inaad ka jawaabtid adigu aan lagu weydiin inaad si fiican aad public wala hadashid oo tiraahdid waxyaabaha muxuu baahayaha jira in iska wada kaashado wax walba adiga ma qaban kartid waxa loo baahan waxay aadan qaban karinin cadaalad ku muxuu ahaayay ku buuxi hadaan cadaalad sameeyno wax ma qaban kartid marka waxa loo baahan cadaalad kalsooni dadka ku siman shaqo wanaagsan muxuu ahaayay niyadaada oo ku xiran nacfi aadan ku xiran iyo inaad weliga ku fikirnaa wax xadid weliga ku fikir waxa la xado way dhamaadaan ciid hadii la aruuriyo maanta dambe eber bay noqotaa marka weliga ku fikir inaad wax xadid weliga ku fikir inaad maaragtay wax aruursatid qof kasta waa dhimanaya soo wixii dhan yaalaan buu ka dhimanaya marka waxaad ku fikirtaa wax walba inaad helaysid mar walba waxa shaqada qofka ugu horeeya noqon ama santi